tiro injineera oo ka howlgala shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa maanta munaasabad sagootin loogu sameeyay magaalada Muqdisho iyadoo injineeradani ay tababar ay u aadi doonaan caasimadda dalka Malaysia ee Kuala Lumpur. madaxda iyo shaqaalaha shirkadda ayaa goobjoog ka ahaa goobtii ay ka dhaceysay munaasabadani waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay Aadan Xaaji Yuusuf oo kamid ah maamulka shirkadda Somtel. marka insha Allah taala teamkanina waxaan hubaa waa teamkii loo soo xulay karti iyo amaano iyo aqoon iyo dadnimo la soo xushay way iska laga soo xulay shaqaaluhu ilaa 700 iyo something bay ku dhow yihiin in shaqaalaha kor u dhaafayaan shirkadda Somtel Soomaaliya dadkii laga soo xulay ee la yiri weeyaan aleelaha dadkaas ka bixi kara hawshaas soona qaadi kara soo munguurin kara aqoonta marka waxaan ka rajaynayaa wixii la idinku tuhmay inaad ka soo bixi doontaan insha Allah taala inaad noqon doontaan kuwii lagu najaxo inaad halkan markaa timaadaan aad sidii aad u soo qaadeen u gudbin doontaan aqoontii aad soo barateen si ay shirkaddu ugu najaxdo. madaxda shirkadda Dahabshiil Group ayaa waxay sheegeen in tababarkani uu wax weyn uu ka tari doono isla markaana ay guul ay u tahay madaxda shirkadda Somtel. Axmed Cabdulaahi Aadan waxa uu ka tirsan yahay madaxda Dahabshiil Group. waxaa la rabaa adeegtaan inay tahay bulshadiinni iyo dadkiinni oo baahi badan u qabo tiknoolajiyada horumartay ee adduunku maanta waxaan ku dhaca ku naaloonaya in dadkiina aad adduunkana uga faa'iideysaan oo aad gaarsiisaan waxa soo aragteen oo aad noqotaan bari ka maalin dad macna looga maarmo in dadka la diro oo loo diro meelaha maxaan ku dhaca waddanka haysan adinka noqotaan dadkii cilmigaas laga qaadan lahaa oo maxaan ku dhaca tababarkaasi bixin lahaa waxaan rajaynayaa insha Allah taala inuu noqon doono safar raaxo leh oo maxaan ku dhaca hadafkii laga lahaa iyo jidooyinka loo baxay maxaan ku dhaca wixii dhan ay ka soo maxaan ku dhaca muuqdaan. injineeradani tababarka u aadaya waddanka Malaysia waxaa kamid ah Cabduqaadir Jaamac Maxamed injineer Shire wuxuuna ku hadlayaa magaca injineerada tababarka u aadaya dalkaasi Malaysia. tan waxay bidaaminaysaa in ay shirkaddu ay keeni doonto adeegyada ugu casrisanaa sida adeegyada ay ka qabtaan meelaha kala duwan ee Soomaaliya sida Somaliland iyo Puntland kaasoo ay ugu horeeyeen 4G-ga ama LTE-ga iyo dahabka dhinaca kalena waxaan isleenahay waxaa looga maarmi doonaa injineeradii shisheeye oo hawsha qaban jiray waxaana ku cadaynaysaa sida injineeradeedu ay ugu dirayso magaranaysaa safar dibadda ah kaas ay ku soo baran doonaan qalabka casriga ah oo sida idin sheegay ay ka mid yihiin 4G-ga ama LTE-ga. سلمان جمال سعيد TV عالمي Universal مقالة مقدشو.